بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan walaalaha ay maqlaya ama warkayga iyo codkayga uu gaarayo ama intay arkaan daawanaya oo casharkii ama xalaqadii saddexaad ee aynu kaga hadlayno axkaamu siyaam ama sawmka iyo waxa la xiriira. maanta casharkeennu insha allahu tacaala wuxuu ku saabsanaan doonaa sawmka waxyaabaha jabiya iyo waxyaabaha aan jabin. qofka haddii uu cibaadaysanayo sawmkana la imanayo arkaantii islaamka ka mida sidaynu casharkii hore ku soo sheegnay, waxaa waajibku oo laga doonayaa inuu ka ilaaliyo sawmkiisa waxa burinaya, jabinaya amaba baabi'inaya, kuna dadaala cibaadadiisaas say u asixi lahayd. haddaba qofku si uu sidaa u sameeyo wuxuu u baahan yahay inuu ogaado maxaa soonka jabiya, maxaanse jabin. waxyaabaha soonka jabiyay ama soonka jabintiisa looga hadlaayay waa laba qaybood. qayb markaa daliilkeedu muuqdo inay soonka jabinayaan, iyo qayb aan daliilkoodu aada u muuqan inay soonka jabinayaan laakiin culammada qaar qabaan. mid waliba insha allahu tacaala waxbaan ka sheegi doonaayo aan ka taaban doonaa, laakiin hal arrin aan ka horreysiiyo. waxyaabaha soo socdayna sheegi doonaay waa laba qaybood. qayb qofku fal uu samaynayo isaga ka imanaya ah, iyo qayb isaga wax ka awood badan oo ku dhacaya ah. qaybaan isaga awooddiisaba ahayn, isaga uusan celinna karin, keenina karin, sida gabadha caadada ku dhacda oo kaleeto, ama qofka soomanoo ajal iyo geeri ku timaado saynu arki doonno. qaybina waa inta badane waa fal uu qofku samaynayo oo isaga ka imanayo ka soo fulaya. qaybta qofka falka ka soo fulaya ee isaga ka imanayaay marka ay soonka jebinayaan saddex shardi baa lagama maarmaana. saddexdaa shardi mid ka mid a haddii la waayo, isagoo qofku wixii jabin lahaa soonka sameeyey baa soomkiisu jiraya oo aanu jabayn. waxaa leeyahay shardiga koobaadi qofku markuu waxaan samaynayo an yakuuna mukhtaaran hayra mukrahin, waa qof khiyaarkii ku sameeyey inuu yahay oo aan lagu qasbin. haddii lagu qasbo gaalnimadii ka weyneyd buusan qofkuba gaaloobaynin. haddii cunto lagu qasbo ama cabitaan lagu qasbo ama galmihii xiriir gogoleed lagu qasbo ama wixii axkaamu riddahaa lagu qasbo iyo waxa lamidkaan sheegi doona insha allahu tacaala ee mubtilaadka ama mufsidaatu siyaamka, haddii ikraah iyo qasab uu ku sameeyaay sawmkiisa ma jabiyaan. shardiga labaadi waa inuu xasuusan yahay inuu soomanaa. halmaan hadal kuma jiro. wixii isagoo ishalmaansan ilowsan inuu soomanaa, haddii uu wax cuno ama cabo ama iskaba mantajiyo, soomkiisii wuu jiraaye kama burin, kamana jabin. labadaba nabigeena sala allahu calayh waalihi wasalam
hal xadiid buu labadaa shardi ku sheegayoo wuxuu ku yidhi ina allaha wadaca can ummatii riwaayad qaarkood cafaata can ummatii riwaayad qaarkood tajaawaza can ummatii ummaddayda wuxuu u dhaafay alkhata'a waاnnisyaana wama stukrihuu calayh. waxaa ka mida labada nisyaan iyo halmaan wixii u keeno iyo wixii lagu qasbo labadaa midna looma qabto. halmaanku si gaara buu nabigu xadiid kale ugu sheegay oo bukhaari iyo muslim abi hureyre ay ka wariyeen oo nabigu sal ly slam uu leeyahay man nasiya wahuwa saa'imun qofkiis halmaama asagoo sooman fa akala aw sharib wax cuna ama caba falyutima sawmah soomkiisa ha iska wato ha iska dhammaystirto fa inamaa acamahu allahu wasaqaah ilaahay baa cunti iyo cabitaan deeqa siiyey oon soonkiisana wax u dhimaynin naftiisana ku xoogaysanayso. haddaba shardiga labaadi waa inuusan halmaansanayn oo ula kas isagoo xasuusan soomkiisa u sameeyo. halkaa mas'alaan kugu baraarujiya marka haddii aad aragto adigu qof soomana oo wax cunaya ayna dhici karta inuu halmaansan yahay oon looba qabanayn inuu ka soconayo dambaabayana ay dhici karto maxaa kaala gudboon? jawaabtu waad u sheegi waraa cuntada jooji baad dhihi waayo inuu halmaansan yahay adiga ma ogid laakiin qof soomana wax cunaya daahirka ficilka uu samaynaya munkar wey isaga dembi ma laho loo qaban maayana waa mas'ala adiga munkarka aad aragta inaad zuulisana waa mas'ala. walidaalika nabigeena xadiidka abi saciid muxuu ku yidhi ee muslim iyo keyrkii wariyeen man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih qofkii arka munkar ha bedelo hadduusan awoodin gacanta fa bilisaani carabka afkaabaad awoodaaba war sowma soomanid hadduuba biyo isii ku yidhaahdo inuu halmaansan yahay dhici kartood siisana walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaani wey sida adiga kuu muuqata qof soomanoo wax cunayoon cudurdaar lahayn qofka saas oo kaleeta ah waa qof munkar iyo dembi samaynaya. mar haddii ayba sidaas tahay halmaanku isagu dembiga ka ridaa laakiin adigu amar iyo nahyigii macruufka iyo munkarka waxaa kuu muuqda kaa ridi maayo. shardiga saddexaad qofka ay soonka ka jebinayaan waa inuu yahay qof og inuu soomka ka jebinayo oo qaacidatu lcudri biljahli wey. hadduu qofku cuno ama cabo ama iska matajiyo si ula kas ah isagoo aan ogeynba waxaani inuu soomka jebinayo soomkiisu waa asaxaya. labadaba ama saddexdaba way u cuskadeen culimmadeennu raxmatullaahi calayhim jamiican. midda guud oo ah qofka ilaa cilmiga iyo xaqa ogaanshihiisu soo gaaro looma qabto xataa kuwii gaalada ahaa wabaa la yidhi wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcatha rasuulan waxa qofku markuu soo gaadho bay guud ahaan takliifta iyo waajibku ka dhashaan. tan labaadee loo cuskaday waxaa weeye qiyaasan cala asalaa salaada markii hadalka la xaaraantinimeeye waquumuu lilaahi qaanitiina la yidhi ka horna saxaabadu salaada dhexdeeda ay wax isku waraysan jireen waa kii ragaan taxriimka ogeyn intay yimaadeen oy salaada ay galeen oy salaada dhexdeeda dadkii waraysteen oo lala hadli waayey oo yidhi war waa sida maxaad ii fiirfiirinaysaan oo in la aamusinaya marka hor ka aamusay nabigu salaada markuu ka baxay unbuu u sheegay inuusan hadalkaasoo kale ku noqon ma dhihin salaaddii way kaa jabtay. walidaalika jahligu inuu cudurdaar yahay salaada awlaa min asiyaami ah haddii loo qaban lahaa. mid khaas oo soomkoo saddexaadna waa u cuskadeen culimmado markay soo degtay xataa yatabayana lakum alkhayط alabyadu min alkhayط alaswad bacdii ibni xaatim baa laba xarigoo mid madow iyo mid cad buu qaatoo barkintu hoosteed u gashaday dee waa iska cunayay ilaa uu labada xarig kala garto way u kala cadaan waayeen marka
nabigu yimid oo arrintii u sheegay markaasuu wuxuu u sheegay in arrintaa wax ka khaldan yahay arrintaas waxbaa kaa khaldan buu arrintu saas maahee caddiinka iyo madowga la sheegaya waa iftiinka maalinta iyo mugdiga habeenka kadib bay culamada qaar yahay min alfajri baa kadib lagu dhammaystiray oo soo degtay caddii soonkii soo qadee lama dhihin intaas marka la isku daro baa waxay imanaysaa qofku haddii uu cuno ama cabo ama iska mantajiyo ama mubtilaatu siyaam uu sameeyo isagoon ogeyn inay soonka jabinayaan cudurdaar buu leeyahay soonkiisuna ma jabayo saddexdaa shardi waa inuu qofku og yahay waa inuu lakas u sameeyo waa inay khiyaarkiisa tahay haddii aanu ogeyn ama halmaansan yahay oosan kas ahayn ama lagu qasbay oosan khiyaar lahayn waxyaabaha isaga ka soo fula ee soonka jabiye ee khiyaarkiisa ku yimaadaay soonka ma jabinayaan intaas kadib waxyaabaha soomka jabiya waxaa ka mid a kow arridda qofku diinta inuu ka baxo hadduu qofku gaaloobo oo xukmu ridda walmurtadi uu qaato soomkiisu waa burayaa lain ashrakta layaxbaطana camaluk camalkaagu waa burayaa kii aad ku dhex jirtayna waa burayaa kan kalena ma shardi baa inuu riddada ku dhinta kuwii hore uu sameeyey mise ma aha waa masalo khilaafi aho mowdiceeda iyo meesheedu hadda halkan aanay ahayn waxaa kaloo loo daliishaday ilahay inuu yihi subxaanaه wa tacaala waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minh nimaan islaamnimo waxaan ahayn diin iyo cibaado iyo khayr ku raadiyaay lagama aqbalayo ilaahay waxaa kaloo yihi gaalada markuu ka hadlayay cibaadaadkooda waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuuran wax bilaashahoo bacaadiyo ciid la daadiyey baanu ka dhignay buui iyo boodh la fidiyey boodh la daadiyey baan leh mar kale ilaahay wuxuu yidhi wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa anahum kafaruu billaahi wa birasuulih sababta diiday in sadaqaadkii laga aqbala iyo waxay bixinayeen waa ilaahay rasuulkiisay beeniyeen wey nin ridoobo ilaahay rasuulkiisii diintii rasuulka ka baxay rabbina ku kufriyey haddii sadaqaba haddii laga aqbali waayo soonkiina min baabi awlaa wey sababta labaad ee soomka jebisa waa inuu qofku cuno ama cabo asagoo og oo xasuusan ilaahay baa soomka xaqiiqadiisaba ku tilmaamay in cunto iyo cabitaanka la yska daayo fajarku markuu dhasho ilaa maqribku u dhaco wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr ثuma atimu الصiyaama ilى اleyl ilaa habeen la gaaro soomka iyo afhaysiga dhammaystira saa darteed qofku hadduu iska cuno isagoo xasuusan soomkiisii xaaraantinimadana og ama uu sidoo kale isaga cabo soomkiisi waa jabaya soomkiisina waa buraya sababka saddexaad ee soomka jabiyaay waa wixii cunto iyo cabitaan booskooda gala waa faleebooyinka ama dawooyinka nafaqada ah kuwa enerjiga ah meel kastaba ha laga qaato ama xidid ha la raaciyo ama si kale ha loo isticmaalo dawooyinkan enerjiga iyo awoodda ah ee booskii cuntada iyo cabitaanka galee lagaga maarmo iyadana macno iyo xukunba cabitaan iyo cuntay la mid yihiin saa darteed iyaguna soomka way jebinayaan qiyaasan cala alطacaami waasharaabi culamada qaarkood ba waxay u yaqaanaan nooca la yidhahda qiyaas nooca ah nafyu lfaariq waxba kuma kala duwana afkaan cunto ka qaatay iyo xididada halbowlahaan cunto ka qaatay mar haddaad cunto qaadatay cabitaanna qaadatay soonkaagu waa jabayaa aada xasuusnayd aadna ogeyd cidna aan kuu qasbin
waa sababka saddexaad ee soomka jebinaya. sababka afraad ee soomka jebinaya waa qofkii oo kas isaga matajiya. haddii matagu ku soo dhaafo soomku ma jabo, laakiin adu haddaad iska keento ama afka gacan geli ama si kalaba isaga keene, adugu haddaad iska keenta mataga soonkaagu waa jabaya. waxaana asal u ah qowlkii nabiga sala allahu alayh alih wasalam, man daracahu lqay'u wahuwa saa'imun falaysa calayhi qadaa. qofkii matag soo dhaafo asaga oo sooman qada laguma laha. waman istaqaa'a camdan falyaqdi. qofkii kas isaga matajiyana ha qadeeyo. xadiidka waxaa wariyay imaamu abu daawuud, tirmidi, ibni maajih iyo daarimi iyo rag kalaa wariyey. waana min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu wa ardaahu. xadiis saxiixa weeyo sheekh albaanina kitaabkiisa la yihahdo irwaa lkhaliil 923 iyo 930 buu ku sheego. halkaa faahfaahinta taalibulcilmigu waa ka raadin karaa. halkaa waxaad ka faa'iidaysatay matagu laba xukun buu leeyahay. haddaad adugu kas isaga keenta adoo soomanaa, ogna inaad sooman tahay, inay xaraam tahayna ogna oo soonka uu jabinayana, soonku waa kaa jabaya. haddii aadan iska keenin oo ku soo dhaafana, soonka waxba kaa jebin maayo. sababka shanaad ee asbaabta soomka jebisa ka mida waxaa weeye waa caadadii iyo umushii wey. waa arrin haweenka khaas u ah, kana awood badan oo khiyaarka qofka aan ahayn. saa darteed tan iyadu ikraahna kuma xir, shardi maaha. ogaanshana shardi maaha. kas iyo halmaanna shardi maaha. xaydka iyo nifaasku soonka way jebiyaan. waana xadiidka abi saciid alkhudri ee bukhaari iyo muslim, nabiga calay slam yihi alaysa idaa xaadat lam tusalli walam tasum. sow ma aha buu ku yihi saxaabada, gabadhu hadday soonto inayna salaadna tukan bil aynan soominna. markaas waxay yidhaahdeen haa, arrinay yaqiineen nabiguna horay u baray bay ahayd sala allahu alayh alih wasalam. saa darteed dhiigga caadadiihi soonka waa jebiyaa. halkaa badanaa su-aal baa dhiigga caadada gaar ahaan nagu timaada ama soo noqnoqota. maadaama gabadhii inay cibaadaysata ay doonayso, bishii ramadaanna soo gashay, dawo iyo wax ma qaadan kartaa si caadadu aanay igu dhicin bisha ramadaan? ma samayn kartaa? su-aashaa jawaabteedu waxaa weeye haa, laakiin shardi baa ku xiran. waa haddaan dhib ka badan ku imanaynin ama dawadu caafimaadkeeda ayna wax u dhimaynin. hadday caafimaadka wax u dhimaysaay, dhibka jirka in la dhibo darar la gaarsiiya lama ogola. dembina kuma laha dhiigga ku dhacay oo dib bay ka qadayn kartaa. waxaan halkaa in badan kuwa xasuusinayaa xilliga xajka iyo xilliga ramadaanka dawooyinka gabdhaha qaar ay qaataan si ay u xajiyaan ama u ramadaanka u soomaan, marar badan isku dhaxyaa caadaday keenaan. dhiig furan bay keenaan, caadadeedii oo qasantay keenaan, oo dhiiggii hadhow su-aale iyo waswaas iyo dhib badan ku yimaado. waxaan dhihi lahaa sida abiiciga ee rabbi u abuuray ha loo daayo. laakiin hadday su-aashu noqoto haddaan dhib ka badan ka imanaynin ma la qaadan karaa? jawaabtu haawey. waxaa ka mid ah waxyaabaha kale soonka buriya, falka bini aadamka ka yimaadana ah jimaaca ama galma iyo xiriir gogoleed baa ka mid a. mas'alada galmada iyo xiriirka gogoleedii iyadana soomka way jebisaa, maadaama ay ka mid tahay shahwadii la yidhi nabigu alay slam xadiidka uu ku yidhi yadacu طacaamahu, xadiid qudsiga, yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli. in jimaacu soomka buriyana intaan ogahay wax khilaafa ma ogi bayna ahli اlcilmi raxmat ullaahi calayhim. saas darteed baa waxaa tusayba xadiid abi hurayra oo bukhaari iyo muslim wariyeen, baa nabiga nin u yimi rasuulka ilaah waan halaagsamay, oo maxaa kugu dhacay? wuxuu yidhi waqactu calaa ahlii fii nahaari ramadaan, anoo maalin sooma maan reerkaygii ku dhacay. markaasuu yihi nabigu addoon xore,
kaas wuxuu yidhi maba heli kara qoorteeda qooraan ahayn ma heli karo. waxaa la yidhi 6 maalmood soon waxaa sidan ii galaba soo soon maaha wuli maalin adkaysan waayo maa 6 adkaysan kara. waxaa la yidhi 6 miskiin quudi wuxuu yidhi maba haystaa maxaan quudiyaa. riwaaya abu daawuud oo sheekh naasir waa saxiixa uu leeyahay baa waxay leedahay saxiix abi daawuud 2065 ku sheegayo. waxaan leeyahay riwaayada abu daawuud baa nabigu wuxuu ku leeyahay wasum yowman makaana saxiix abu daawuud 2073 wey booskiisii maalin kala soon. halkaas soonkii inuu jabay baa laga garan. waaba dembiga ugu adag ee la galo soon lagu jabiyey riddada kadib waa jimaaca wey iyo shahwadaas. saas darteed baa asbaabta keeni karta shahwadana soonka ninkaan ishayn karin iska daalayay saynu arki doonay insha allahu tacaala. saas darteed waxaan leenahay sababka 6aad ee soonka jebiyaay waa galmada. markay galmadu jebinayso ta halka dembi leh iyo ta labada dembi leh waa isku mid. ta halka dembi leh waa ninka iyo reerkiisa. ta labada dembi alana waa jimaac iyo zina la isu geeye wey. masala kugu baraarujiya marka dadkii xeelad iyo musuq maasuq baa meherad u noqotay. markaasay wadaadaduna musuq maasuqa inay ugu qeyl bixiyaan bay bilaabeen. waa inuu jimaac ku afura bay yidhaahdeen. sidaa ma aha sida kafaaradu ku waajibto. kafaaradu sida ay ku waajibta waxaa weeye adigoo ahlu siyaam ahaa ahlu fardi sawm ahaa inaad maalinimo reer u tagto wey ama aad galmo samayso. laakiin ragba waxay yidhaahdeen xeelad baanu idiin samaynaya haddii aad ka maarmi weydo marka hore biyo kabo soonka jebi markaa kadib waxaad samaysa soonkii dembigiisii iyo kafaaradiisa mooyeen qadihiisa mooyeen kafaaro male. aslanna waa qaacida wax ka hor imanaya qaacidada sharciga wey. sharcigana waxaan naqaanaa markuu dembigu weynaadaba cuquubadu way weynaataa. nin biyo cabay oo jimaacna sameeyey xalaal iyo xaraam kale wuxuu dooni ha noqdo xaaskiisii cid kaleba ha noqotee in la yidhahdo cuquubada lagaa fududayn kii jimaaca kaliya sameeyey baana kaa cuquuba adag sax maaha. marka xeelada iyo musuq maasuqa diinta laga daayo. rabbi waa arkaa subxana wa tacaala qof walba wuxuu samaynaya. waxa 7aad ee soomka jabiya waa inzaalka inay qofkii biyo kas isaga keeno. kaas waxaan uga jeednaa qof ay hurdo kaga timidna maaha. qof ay hawl isaga ka awood badan kaga timid shahwadiina maaha. uu naxay way ka timid. uu cabsaday way ka timid. imtixaanaad kurbadeedu dareemay way ka timid. waxbuu fiirfiiriyey uusan aada ugu qasdin way soo dhaaftay. uu xanuunsaday xanuun baa ka keenay. kuwaasi wayse ma jabiyaan. kuwaas ma jabiyaan maan lehe soonka. laakiin istimnaha ama siigaysiga rag iyo dumarba midkii sameeyaba waysada wuu jabiyaa. waxaan leeyahay soomka wuu jabiya cafwan. istimnuhu soonka inuu jabiya waa qowlka jamaahiiru ahli lcilmi wey raxmat ullaahi calayhim. nas cad oo wuu jabinaya ma jabinayana ma jiro. laakiin marar badan markay masaladu saa ijtihaadi u noqoto qowlka jamhuurtu waa uga dhow yahay sawaabka iyo xaqa qowlka dad yari ay qabaan. waxyaaba badan bay jamhuurtu daliishadeen. xadiidka abi hurayra ee nabiga calayh salaatu wasalaam uu ku lahaa yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli waana xadiidu lqudsi. طacaamkii iyo sharaabkii iyo shahwadii baa la israaciyey. طacaamkii iyo sharaabkiina way jebiyaan. shahwadii la raaciyey marka inay la xukun noqoto weeye. dalaalada noocaasa waa dalaalada la yidhahda dalaalatu liqtiraan. xiriirka nooc dacfiga ku jira. halkan masalaan dalabatulcilmiga masalaan ku baraarujinaya. dadka qaar baa waxay soo guuriyeen axnaafta usuuliyiintoodu kelimad ay leeyihiin oo ay leeyihiin dalaalatu liqtiraanka marka la daciifinayo waa markay tahay cadfu ljumal cala aljumal tahay.
laakiin cadfu lmufrad cala lmufrad hadday tahay dalaalatu liqtiraanka way xoog badan tahay, xujana wey. markaasaa waxay yidhaahdeen tani waa dalaalatu lmufradi cadfu lmufrad cala lmufrad dalaalatu liqtiraanka xooga badan wey. qowlka axnaafta laga soo guuriyey ee ijmaaca qaarkood usuuliyiintu ay soo guuriyeen itifaaqu waa itifaaqu usuuliyi laxnaafi wey, usuuliyiinta culimmado dhan maaha. wailaa usuuliyiinta kale khilaafku jumla calaa jumla iyo mufrad calaa mufrad isku mid wey. walidaalika walkhayla walbigaala walxamiira baa khilaafku ku jira, wa طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahuna waa lamid. waxaa labaad ay cuskadeen culimmadu in asbaabtii shahwada ama jimaac ama inzaalba nabigu diiday, qofkaan ishayn karin. abu hurayra waxaa laga wariyay xadiid abu daawuud iyo keyrkii warinayaan, wuxuu yihi nin baa nabigu yimid sala allahu alيh wasalam, markaasuu mubaasharada reerkayga ma taataaban karaa buu yidhi. markaasuu wuxuu yidhi haa. haddana nin kalea u yimid, wuxuu yihi reerkayga ma taataaban karaa iyadoo la sooman yahay labadaba. markaasuu yihi maya. ninna waa loo diiday, ninna waa loo yeelay. abu hureyre labadii nin baan fiiriyey buui, saa ninka loo ogolaaday waa nin waayeela, ninka loo diidayna waa nin dhalinyaro ah. de waayeelku waa isxajin karaaye, ninka dhalinyaradee hadhow wax soo dhaafayow adigu is ilaali. caaishana waa kaleedahay wa ayukum yamliku irbahu kamaa kaana sala اllah alay slm yamliku irbah. nabigu siduu shahwadiisa u xajin jiray midinkaa xajin karaa leedahay shahwadiina warjooga. kaana waxay u daliishadeen mubaasharadu shahwadana way keeni kartaa, xiriir galmana way keeni kartaa. waxaa saddexaad ay daliishadeen culimmada raxmatullaahi calayhim arrintaa ka hadlayaay alqiyaasu cala aljimaaci. waxay dhaheen jimaacani waa shahwo gudasho, iska keeninduna waa shahwo gudasho. hadday axkaamta qaarkood ku kala duwanaadaan, kan shahwadii guud ay soo wadagelayeen inay isshabbahaan baa raajix nala ah. calaa kulli xaal waa istidlaalaadkii jamhuurta raxmatullaahi calayhim jamiican. waxaa sideedaad ee ugu dambeeyaan ku soo qaadayna cashirkeennan ee sowmka jebiyaay waa waalida ama maskaxda iyo maanka oo taga wey. waxaynu shartu takliif marar badan nidhaahnaa soomku wuxuu ku asaxaa qofku inuu yahay caqligiisu iyo maankiisu joogo. qofku caqligiisii haddii uu tago soomkiisii waa jabaya. caqligaa tegay ama jin iyo waali ku dhacday ha noqdo, ama xanuun kaliya maskaxda oo isku dhex daadatay ha noqdo, ama qofkoo miir daboolay oo miir beel iyo kooma galay ha noqoto. mar hadday caqligii iyo garashadii si rasmia u tagto soomkiisi waa jabaya. waxayna culimmadu u daliishadeen rufica alqalamu can halaaثatin can الnaa'imi xataa yastayqid wa can الصabiyi xataa yablug wa can اlmactuuhi xataa yacqil. qofka waalan ilaa wax kala garto. irwaa khaliilkana ka fiiri 297 xadiidkaa tasxiixintiisa. halkaa waxaad ka faa'iidaysatay caqligu waa sharطu wujuub waana sharطu sixa. soomku markuu waajibaya caqligu inuu jira waa shardi, markuu ka asaxayana caqligii takliifta sixadeedu ku xirnayd waa in lagaa helaa. qof majnuun oon caqli lahayn salaadna kama asaxdo, soomna kama asaxdo, ridda xataa kama asaxdo, waxba kama asaxaba, waxba looma qoraba. saas darteed haddii uu qofkii isagoo sooman dhexda ka waasho soomkiisii waa jabayaa, waayo shardi shuruudu sixaa ayaa la waayey. intaasi hadday tahay waxyaabaha soomka jabiya, waxaa jira dhowr arrimood aan tilmaamo oo aan soomka jabin. waxaa ka mida kow alxajaama, istoobinka. toobinka xukunkiisa waxaa lamida, toobinku waa intii toobin lagu qabtay dhiig lagaa daadiyo. haddii dhiig lagaa qaado lagu baarayo ama aad qof dhiig u shubtana waa lamid. ma kuu bannaan tahay hadday duruuf iyo tabardarra kugu timaada inaad afurto mas'alo kale wey, laakiin soonkii ma jabaya? maya.
haddii la yidhahdo aftara alxaajimu walmaxjuumu xadiidkii yahaa qofka wax toobay iyo kala toobay way afureen maxaad dhahaysaan waxaan leeyahay xadiidkaa mansuukh wey waxaana nasakhay nabigu inuu soomay isagoo muxrim ahna soomay oo istoobay ibnu cabaas baa wuxuu leeyahay ixtajama rasuula sal slam wahuwa muxrimun waxtajama wahuwa saa'imun waana xadiid bukhaari muslim wariyeen ibnu cabaas xadiidka uu warinayaay qisadan kalea ka horeysa oo jacfar ibn abi aalib bay ku baxday jacfar ibn abi aalibna dagaalkii mu'to fatxu maka abuu ka horeeyey ibnu cabaasna bacda fatxi makata dadkii madiine yimid ee nabiga wax ka maqlay ka wariyeen buu ahaa sala allahu alayh waalihi wasalam waxaa labaadoon jebinaynin adigoo janaabo qaba hadduu waagu kuu baryo ma jebiyo ramadaanka ma jebiso oo waxaanay u jebinaynin nabiga ay ka sugan tahay sal ly slam xadiidkii caaisha umu salama oo bukhaari iyo muslim kaana rasuul allahi yusbixu junuuban min jimaacin gayri ixtilaamin uma yasuum waagaa u baryi jira oo salaadaa loo soo geli jirtay mararka qaar isagoo janaabo qaba uu reerkiisa la kulmay oon ixtilaam iyo riyo ahayn kadibna waa iska soomi jiray waa la qabaysanayaa waadna tukanaysaa waadna soomaysaa halkaa waxaad ka garatay qabayska maalintii la qabaystana soonka ma jebiyo idaan halkaas ka garanaysaa waxaan soonka jebinin oo kaleeto wax kasta waan cunto iyo cabitaan ahayn mid inagu waynu naqaan waxaan la liqin oo dhan waa naqaan ee afka la geliyo wax afka la geliyey oo aan la liqin soonka ma jebiyo inagu waxaan naqaan markii la weysaysanaya waa la luqluqdaa haddaan hoos biyo kuugu daadaadanin soonkaa jabi maayo waxaan naqaanaa waa la cadaydaa haddaad cadayatood ilkaha marmariso soonkaama jabo laakiin agoo biyahaad ku luqluqatay hadday kulul yihiin iyo hadday qabow yihiin afkaaga waa dareemaya mararka qaarkood dhadhanka biyaha hadduu macaan ku jira iyo kharaar waa dareemayaa jirkaagiyo dareemayaashii baa qaadaya lakiin haddana soonka ma jebiyo taa inaga mushkilad kama qabno waxaa lamida dhawqu طacaam cuntada la dhadhamiyo cuntadii carabka inuu qofku saaro inay cusbadii iyo wixii ay ku dartay gabadhu laakiin aan waxba liqina iska tufto ama hilibkii cad hilib intuu qaaday ilkaha ku qabtaay waxba kama duwana ilkaha cuntadu saa loogu qabtay carabka sokay biyuhu gaadhayeen maaha hoos hadduu u daadaguun baa la diidanya marka dhawqu طacaam iyo waxaan dhuuntan dhaafinayn laqliqiqin waa un luqluqashadii iyo wixii lamidka ahaa ay taqineen wey waxaa kaloon soonka jebinin wixii qiiqahee afka iyo sanka iyo maskaxda gala laakiin aan hoos iyo calool u dhaadhicin sida dawooyinka neefta iyo markay qofku xirmo bukhaaqan la yskaga buufiyo waxay lamid yihiin qiiqa banaanka kugu baxaya iyo qofka banaanka budada iyo burka gadaya ee boorku ku baxayo ama dabeyshaad adoo socda dabayshiiyo ciidda iyo siigada kugu baxaysa unbay lamid tahay iyagana soonka ma jebiyaan waxaa kaloon soonka jebinin wixii ama gacan ama lug ama gadaal la iskaga irbadeeyo oon calool gaaraynin wax af laga liqayana aan ahayn oo kininiya lamida laakiin irbad bawda lagu duray iyo irbad far lagu duray iyo irbad garab lagu duray de cuntana maha cabitaan iyo nafaqana booskoodii aan gelaynin de caloolna ma gelin manaafidiina ma marin saa darteed soonka iyagana jebin maayaan marka iyagana ayaan loo qaadanin waxyaabahaasoo dhan soonka inay jebinayaan halkaasaan kusoo gabagabaynaynaa xalaqada iyo cashirkeennii ahaa soomka waxyaabaha jebiya waxyaabahan jebin iyo shuruudda ku xiran ilahi waxaan ka barya subxana watacaala khayr inu nagu kulmiyo intaan cashirka xigay soo socda isaga imanaynana waxaan idinkaga tegaya assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu